waxaan halkan fariin uga diraya madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan leeyahay madaxweyne fariintii aad noogu soo dhiibtay ragga amniga ku qaabilsan wayna soo gaadhay inay yiraahdeen meydkii oo yaalo hubka qaata marka ninkan waxa la sabayso oo ah hogaamiyaha Subeer Awalna qadafka shaqaalaha dhagaha fudud uga yimiday qofka ninkan aabihiiba garanay waanu ka raali gelin Suudaankuna madaxu Subeer Awal u saadigan ka shaqaalaha ka dhacdina waxaan leeyahay waanu idin garab taaganahay nafiya maalba waanu idin huraynaa kuwa dhadhamada idin siisanaya ha maqlina ee silmada la soo siinayeen cidna matay marka ninkan waxa leeyahay fariinta noo soo diray salaadiinteeda caayana adigu waxa tahay ninkii aabihii garan waayay yiri aabahay waa ciro marka adigu macira ku dhalay mise wali jaamac baa ku dhalay bal adigu labada noo kala sheeg baan ku leenahay adiga bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah fayeenka guud ee urweynaha Subeer Awal ee Ayatalis waxaan halkan fariin uga diraya madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan leeyahay madaxweyne fariintii aad noogu soo dhiibtay ragga amniga ku qaabilsan wayna soo gaadhay inay yiraahdeen meydkii oo yaalo hubka qaata bulshaduna hubkay qaadanaysaa way istifaacaysaa wax naga dhul yaalana ma jiro waanad ku mahadsantahay fariinta noo soo dirtay diyaar baanan nahay waxaan leeyahay bulshada weynta Subeer Awal deegaan wal iyo meel walba waxaanu ka furnay xarun la shaqeeyo gudida halkay wax marayaan waad arkaysaana baraaruga bulshadayda waxaan leeyahay bustaha iska qaada marka ninkan waxaan leeyahay fariinta noo soo diray salaadiinteeda caayana adigu waxa tahay ninkii aabihii garan waayay yiri aabahay waa ciro marka adigu macira ku dhalay mise wali jaamac baa ku dhalay bal adigu labada noo kala sheeg baan ku leenahay adiga wax inta ka badan ku oran maayo waayo waxa tahay shaqaale dhaga fudud fariinta cidii ku soo fartayna waadna soo gaarsiisay waanad ku mahadsantahay madaxweyne baan ku leeyahay shacabkayguna uu istifaacaya xurmadiisa iyo sharaftiisana uu ilaasanaya dhiigiisuna hadur noqon maayo dagaalka aad ugu baaqdayna waanu ka ajiibnay haddaad raagsatay baan u malaynayaa waad helaysaa fariin degdeg ah helaysaa dadka inta aad joogto xukuumaddaadu laysay shaqaalaha muxuu ahaa laga eeriyay laga saaray muxuu ahaa shaqaalnimada laga saaray dadka saxaafadda la xidhxidhay iyo caburinta iyo cagajugleynta aad wadaana way noo caddahay iyo beegsiga Subeer Awal dadka in shaqaalaha lagu ansax mariyo madaxweynihii qorankaad sawir la gasheena wax la aqbalayo ma hayo beegsiga reeraysanad wado waananu ka ajiibnay waxaad ka heshana waxba naga siin qurba joogta Subeer Awalna halkan fariin baan uga diraya sida qurba joogta kala noqdo wixiinu ficil ha noqdo oo dadkiina garab istaaga oo naf iyo maalba hura oo dhiirada wixiinu yaanu hadal ku koobmin bulshadeeduna waxaan leeyahay meel kasto ay joogto gaar ahaan qurba joogu fadhiga ha ka kacaan wixiinu hadal yaanu noqone ficil u bedela oo si dhaqso ah loo dareemo waad arkaysaan fariinta xukuumaddu soo dirtay deegaanka shaqaaqadu ka dhacdina waxaan leeyahay waanu idin garab taaganahay nafiya maalba waanu idin huraynaa kuwa dhadhamada idin siisanaya ha maqlina ee silmada la soo siinayeen cidna matelin in dantiina ka fikirin in cirdigiina iyo sharaftiina iyo karaamadiina iyo dhiigiina aanu damqayn ee wax yar idinku bedelanaya ama xil ama xoolo waxaanu leenahay shaqaalaha dhagaha fudud ha maqlina ee dadka Subeer Awalnimadu dhabta ka tahay ee idin damqanaya ee nafta idin huraya ee qori iyo maal iyo qalin iyo qowl idin la garab istaagaya kuwa adeeca oo dhagihiina ha furnaado Suldaan sabayso oo ah hogaamiyaha Subeer Awalna qadafka shaqaalaha dhagaha fudud uga yimiday qofka ninkan aabihiiba garanay waanu ka raali gelin Suudaankuna madaxu Subeer Awal u saaday Subeer Awalna salaadiintooda iyo caarkooga iyo dhiigooga way difaacanayaan dagaal baanay diyaar u yihiin waanu ka ajiibnay xukuumadda dagaalka